السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. waxaan dhammaantiin idin rajaynayaa farxad, badqab iyo reereen. waxaan idinku soo dhaweynayaa weji furnaan iyo laabxaarni anigoo matalaya shabakada milkaha badan ee ku suntan Samadoor. waxaan idin wadnaa barnaamijyo idin raali geliya, waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidi doontaan hadduu Alle idmo. janaalkan Samadoor waxaan ku soo kordhinay barnaamij aan ugu magac darnay Kobciye, kaasi oo ku macneyn karno maan koriye. haddaba aan ku sii dhaqaaqay barnaamijkeena maanta waxaan ugu hadli doonaa dalkaaga hooyo, dalkeena hooyo. waxaana idin soo jeedinayaa anigoo ah Sakariye Cumar Macalin Sakariye Wardi. haatan ku soo dhawaada barnaamijka Kobciye. wuxuu noqon doonaa mid taxane ah oo ka baxa janaalkan. qaybtiisa koowaad maanta waxaan ugu hadli doonaa baro dalkaaga hooyo insha Allah. Soomaaliya waxay dhacdaa geeska Afrika. waxay xuduud la leedahay dhinaca galbeed Ethiopia, dhinaca waqooyi galbeed Djibouti, dhinaca waqooyi waxaa ka xiga Badda Cas, dhinaca barina waxaa ka xiga Badweynta Hindiya, halka dhinaca koonfur galbeedna ay daris kala tahay dalka Kenya. badka ay Soomaaliya ku fadhiso waa 637,657 square kilometer. halka tirada dadka ku nool dalka lagu sheegay inay gaarayaan 15 milyan. inagoo ka soo xiganay xogtan ila lagu kalsoonaan karo. lacagta dalka laga isticmaalo waa shilin Soomaali, halka furaha dalka uu yahay balaas 252. haddii aan barnaamijkeena ku sii siqno dhinaca kheyraadka, Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer Afrika, iyadoo xeebtaasi dhirkeedu ay gaarayso 3,333 kilomitir. sidoo kale dalkeena Soomaaliya wuxuu leeyahay laboobi, waxayna kala yihiin Shabeelle iyo Jubba, waxayna maraan isku darkooda 6 gobol. haddii aan ku sii bayaaniyo, Shabeelle wuxuu ka soo galaa dhinaca Hiiraan wuxuuna ku dhamaadaa Shabeellaha Hoose, halka webiga Jubba isna uu ka soo galo gobolka Gedo wuxuuna ku dhamaadaa Jubbada Hoose. cilmi baaris soo socotay muddo badan ayaa Soomaaliya waxaa lagu ogaaday inay leedahay kayd shidaal oo aad u tiro badan iyo macaadino aad qaali u ah caalamka, waxayna u baahan yihiin inaanu ka faa'iideysano si wada jir ah. Soomaaliya si guud markii aan u hadalno waxay ku tiirsan tahay xoolaha nool iyo beeraha, walow mararka qaar lagu daro fishinka ama dabista malayga. dhammaantood dalka waxay soo geliyaan dhaqaale fara badan. markaanne aan u jaleecno gobolada dalka, Soomaaliya waxay soo martay 2 xaaladood oo ah gobolo u sameyn. markii aan xornimada qaadanay 1960, gobolada Soomaaliya waxay ahaayeen 8 gobol, halka degmooyinka ay ahaayeen 36 degmo. goboleyntii labaad waxaa sameeyey madaxweyne Siyaad Barre, Allaha u naxariistee, wuxuuna ka dhigay 18 gobol iyo 92 degmo. waxaa halkaasi noogu eg barnaamijkeenii Kobciye qaybtiisa koowaad oo aan uga hadalnay baro dalkaaga hooyo. insha Allah waxaan soo wadnaa qaybo kale oo xiiso leh. la socod wacan insha Allah. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم.